السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور برنامج كان أو برنامج قاصة هل كأن نجد سنة وراديها صوماليدا مجال سان كلاود برنامج كيجا مانتنا وحنا كسو قادن دونا وحيال اللحيرة استحقاق بالشة دام دتك الصوماليات كنول ودم كأمريكان أي لا دين دت أي كلا دقيقين برنامج كيجا مانتا وحا يقوم مرتاح كلنا أو يسوق نين عبد الله كلنا أو يسوق نين أقوياء كان مذا بالشدة كل قن مقالة ذا سان كلاود قبل كان مينيسوتا عبد الله هيان وحنا كور يصندونا بل إحجالك بالشدة فائدوينك يقصرها كرتا مركب وجوه الرئيس عبد الله برنامج كان ودن كأمريكا كان آد لوجا استعمال إسحلك محن وجه شيء كتر مركب وجوه الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أحمد وما هتسنتهي والله برنامج كان مهم كأقول مرتقادي وأنكم ما هتسنتين إذا عدنا عصبة كفرتين مقالة سان كلاود وحرجينا يوم الدنيا دور هاي دونته أديك يحرق عليه برنامج جديد دادين دون أنت كدب برنامج كان إصلاح قلق وبرنامج مهم ومضى إن خاصة أمضى الصومالية هذا جوبها عن تحلي كان دال الشرق إن أمضى إصلاح قشة دب سقوصة نقطة وأرين مهمة marka intaan wax kala barto sheegin waxa raxladan ka sheego concept-iga la yiraahdo waxa la yiraahdo isdhaxgalka bulshadu waa nidaam lagu ogolaanayo umada oo loogu sameeyo institutionno iyo hay'ad u sahla dadku inay ka qayb qaataan nolosha siyaasadeed ee wadankooda mid dhaqaale mid bulsho ahaan iyo midda kale xuquuqda dadka Soomaalida hadda weydiisay barnaamijkan ma aha barnaamij sida systemyada kale ee dawladaha kale ay sameeyaan socialistaha waa barnaamij umad ay xor u tahay laakiin loo sheegayo faa'iidooyinka ku jira umadu inay ka qayb qaadato dhismaha wadankooda isdhaxlaan wax kala bartaan wax kala faa'iidaan haddii aan wax yar ka sheego Axmed barnaamijkan wuxuu ku qotomaa afar rugni buu ku qotomaa rugniga koobaad waxa weeye waa aftiir buu ku rokomaa iyo kooban yahay muhiimadiisu afartaas tiirna waxay sahlayaan umadu inay isdhex gasho wax kala faa'iido wax kala gadato kala ganacsato kana qayb qaadato barnaamijka ijtimaaciga ee umada iyo midka siyaasadeed labadaba عبد الله هدي ودن كان مريكا وحاكون ولاد فربطان أو كدوان دتكاسو كلا دقنا دتكاسو كلا دين كلا مذهب ومدة يدا صوماليات وحانو كوكورني مجتمع دتكو أي اسكو سينجي بدنكيهين اسكو دقنيهين اسكو مذهب إيهين marka waa maxay waxyaalaha aad isleedahay dadka Soomaalida inkastoo diinta Islaamka ay aad u sameeyso dadka kala midabka iyo kala dhaqaalaha haddana waa maxay waxyaalahan oo dabadidood aqli wanaagsan iyo diinaha la minguuriyay waa maxay waxyaalaha wanaagsan oo ummadda Soomaalida faa'iido ahaan ugu jiro ka baran karaan بسم الله الرحمن الرحيم أحمد runta anigu dad isku diina isku afa isku luqada inkastoo qaar dadku ay ku dhahaan luqadda maygu waa luqad gaar ah laakiin qaarna ay dhahaan waa dialect ma aha waa luqad gaar ah ma aha dad isku diina isku dhaqa isku wada baana waa xaqiiqataas laakiin ummadaha kale waxaanu kala simannahay xagga ka qayb qaadashada siyaasadda dad gaar ah ayaad moodaa inay dominate gareeyaan oo political class la dhaho xagga dhaqaalahana waa lagu badan yahay xagga representationka iyo ka qayb qaadashada siyaasadda iyo waa lagu kala badan yahay xagga waxbarashadana waa lagu kala yahay marka in la isdhex galo ummadaas diverse culture kale dhaqankooda kala duwan yahay xagga classka markii laga eego ama dhaqaalaha laga eego ama xagga ijtimaaciga laga eego in ay ka qayb qaadato barnaamij iskalka muhiim waxyaalaha muhiimka u ah waxaa ka mid ah recognition in la is aqoonsado umadu aqoonsato umada kale ee wadanka kale مثلا gobol haday dad wada degan yihiin kala duwan qaarna yar yihiin qaarna badan yihiin ama qaarna ay leadershipka percentage la jireen oo badan ay iyagu hogaanka umada u hayn jireen goboladaas qaarna aysan u hayn jirin ummadii aan leadershipka aan qayb qaadan jirin waxa muhiim ah in la siiyo chance ay ku matalaan dadkooda
ay kaga qayb qaataan barnaamijka siyaasadda ay kaga qayb qaataan mid dhaqaalaha ay ku noqdaan ummad productive ah oo ummadda kala qayb ah horumarka goboladooda. waxaa kaloo ka mid ah barnaamijyada uu ku dhisan yahay barnaamijkan representation matalaad in la matalo cidna ma rabto inaan la matalin. waxaa kaloo jira oo muhiim ah matalaad ay muhiim u tahay ma aha kaliya anagu sida aanu Soomaali hadda nahay qabiilka iyo kalaanka kaliya ma aha. waxaa jira ummada oo demographic jira waxaa kamid ah dumarka waxaa kamid ah culumada waxaa kamid ah dhalinyarada waxaa kamid ah dadka classka high classka waxaa kamid ah dadka economic classka waxaa kamid ah lower strata dadka hoos dhaqaalahooda hooseeyo intaas oo dhan waxay qayb ka yihiin bulshada intaas oo dhan waxay leeyihiin intaasba haddaysan helin dad matala oo danahooda matala qof ayagii ka baxsan oo noloshoodii aan la wadaagin warqay noloshooda matalaadiisu way ku adag tahay. marka barnaamijkan isdhexgalku wuxuu qayb ka dadka fahansiinaya oo muhiim u tahay in la ogaado faa'iidada ay leedahay ummadda kala duwan ama ha ahaato xagga heerka dhaqaalaha ama ha ahaato labdadig ama ha ahaato dhalashada iyo xagga qabaa'ilka ama ha ahaato xirfadda aqooneed iyo shaqo ama ha ahaato nooc walba ay ahaan lahayd dhalinyaro ha ahaato in ay matalaad ku leeyihiin xagga siyaasadda. inta gudbin waxaan jeclahay inaan su-aal kaa weydiiyo arrimaha ka hadasha haddii bulshadu ay xuquuqda aad sheegtay oo ay dadku ay ka faa'iidaan haddii isdhexgal bulsho u yimaado sida waxbarashada ka hadashay dhaqaalaha aad ka hadashay waddankan hadda la joogo Mareykanka waxaa ka jira class oo ah dadka dhaqaalaha leh xagga guryaha waxaad moodaa xaafada ay degan yihiin dadka lacagtoodu hooseyso xaafada ay degan yihiin dadka lacagtoodu badan tahay iskuulaad waxbarasho ay aadaan dadka lacagta la caruurtooda iskuulaad maxaan ku raahdaa dawladdu dhistay oo aan dadka dhan badan aadaan laakiin qofkii awoodin caruurtiisa inay private school geystaan haddii ay bulshadu weydo wax ay ku simato maxaa dhici karaa oo bulshadii qaar ka mid ah aqoon ahaan dhaqaale ahaan ama tan matalaada ay dib u dhacdo weydo wax ka mid ah doorka siyaasadeed ama bulsho. waa su'aal fiican Axmed. waddankan waa run waa ka jira classka waa ka jira xilka dhaqaalaha waa ka jira siyaasadda labadaba laakiin waddankan waxyaalaha uu nooga duwan yahay waxaa ka mid ah waddankan qof walba cod weeye markii la yiraahdo doorasho hal مسقولنا وآدة in fact مسقولنا وآدة عودنا وعليه واحد عندنا واعنا مركا أما هنتي بدن له أما نقارة بدن له مركي أي بوليس ما شاء الله عودين أي دتكو يمهدان اسكومد باتين مركا دت اسكومد هين مركا ومدة مركا عود كاجا أديك واحد كود دورنا يسا آلا بنويد عدا قف أديك كمتلهية أديك constituency meesha aad degantihiin qof matali kara oo adinka idin ka mid oo garan kara noloshiina waxay ku dhisan tahay baahidiina garan kara waxaad ku fiican tihiin garan kara waxaad u baahan tihiin garan kara laakiin haddii qof kale oo nolol ka yimid sida sheegay nolol kale ka yimid mid haya class oo aan weligeyn meesha aan ku dadku classka hoose ku nool yihiin aan arag si fiican way kama warqabo noloshoodii marka taas ay muhiim u tahay integrationka in ummadda lagu daro ay ka qayb qaadan waxaan ku sheegay haddaysan ummaddu ka qayb qaadan nidaamka siyaasiga ama ha ahaado midkan halkan Mareykanka Soomaalidu aysan ka qayb qaadan ama ha ahaado midka waddanka jira ee loo daayo dadka political waxa haya annaga inay isku kaana baashaan ku baabashaan ayagoo danahooda gaarka ah inay xukunka ku raadsanayaan annagii duruuftuna haysay shaqalaantuna haysay dhaqaale xumaduna haysay waxbarasho xumaduna haysay aan kala kulano dhibaatadii ay noqono dadkii labadii dibi markay isdiyaan isku meesha ku baahan noqono marka waxa waaye dadka political classkana oo hoggaanka siyaasadeed ummadda u hayana waa inay ogaadaan ogolaadan society-gan kale ama ha ahaadan dumar ama ha ahaadan dhalinyaro ama ha ahaadan culumada ama ha ahaadan dadka caadiga ha ahaadaan in ay helaan dad ayaga danahooda u dooda haddaysan dhicin waxaa dhacaya ummadaas waxay ka haraysaa inteeda kale waxayna ku noqonaysaa culays waxaa dhacaysa inay dhaqaalihii ka haraan waxaa dhacaysa in caafimaad ahaan ay u liitaan waxay dhacaysa waad arkaysaa magaalooyinka isku raran inay dhacdo taasna waxay dhibaato ku noqonaysaa waddanka oo idil marka ummadda inay matalaad xagga baarlamaanka sare oo aqalka waddanka ah ma aha kaliya dadka siyaasiyiinta oo walba inuu ku dafaylo waxaa la rabaa dadka hoose yaqaana
og dhibaatada haysata inay ka qayb qaataan u dirsadaan baarlamaanka kore midka isteediyada midka localka midka city councilka bulshaduna inay si wada jir uga qaato xaqiiqada marka isku dan annagoo dhan isku dan baan nahay laakiin waxa waaye political classka ayaa naga faa'iideyso oo kala qaybiya intaadan ka bixin aan mawduuc kale aanan u gudbin xagga waxbarashada deegaankan aan hadda aan degan ama gobolkan soo ah xagga dawladda iyo districtyada oo xagga waxbarashada waxay isku dayaan inay ardaydu isdhexgasho xaqiiqda waxaa ka jira barnaamijyo looga galay isdhexgalka ardayda waxaan arkay ardayda Mareykanka ama aan iraahdo gobolka hadda Minnesota wadamada qaarkood meeshan hadda Toronto oo kale Canada way kala duwan tahay Canada bulshada Soomaalida iyo bulshooyinka ay isu dhexgalaan sababtoo tahay Toronto kale diversity-ga ku badan oo dad ajnabi ah oo meelo kale ka yimid badan ardayda Soomaalida magaalada aan joogno iyo school way aadan laakiin haddana waxbarashadii xageedii waxaad moodaa division u dhaxeeyo oo ardayga kale uusan wax kororsiya uusan ka faa'iideyn marka bal wax yar ma ka taan kartaa arrimaha ciniga sida carruurta Soomaalida ay ka qaybsan yihiin ardayda kale xataa midowga Minneapolis waxa ka dhacay arrin furan oo ah 300 carruur oo Soomaaliya dad midowga inay dagaalameen iskuulkii gudihiisa dugsiga sare arrimaha ka waran xagga waxbarashada ardaydu ay qaysan tahay uusan ka jirin isdhexgal barnaamijka haddii aan ka hadlo district iyo khaasatan Mareykanka qaabka iskuuladoodu u hagaagsan yahay iyo ka qayb qaadashada ummadda Soomaaliyeed horta waa ugu adag tahay waxaanu nimid system kala nimid xaqada markaan ka hadalno waxaanu ka nimid Soomaaliya waxaanu nidan markaan halkan waxa aan ugu nimid system degsan marka annagii waa inaanu la qabsanaa system degsan oo qayb qadna waxaad ogtahay Axmedow hadda iskuulaadka oo kale waxay leeyihiin school board baa lahaa oo hoggaan u ah school boardka waa la doortaa Soomaaliduna halkan hadda way ku badan tahay oo ilaa badan baa u sheeg marka danahoodii duruuftoodii si loo matalo waxa horta aan muhiim ah ku soo jeedin lahaa inay ka qayb qaataan doorashada oo u soo xaarshada oo mid ayaga ka mid ah oo representation ka hadlay mid ayaga ka mid ah ay u doortaan school boards kasta uga qayb qaato tan labaad ka qayb qaadashada ilmaha achievement gapka oo ah ilmaha inay xagga grades ayaan xagga kalena koreeya xaqiiqada anigu macallimiin badan baan la kulmay iskuulkan waa involve gareeyay waxaan ka qayb qaataa parent in action project la yiraahdo macallimiinta lagu tababaro baan waxaan ka ahay instructor oo an facilitator ka oo an baxsha iskuulaadka baxsha marka waxaad ogaanaysaa macallimiinteenu laftigooda ardadeen waaridkoodu ma involve gareeyaan ardada laga cabo waxa kamid ah iskuulka markii uu u yeero oo parentska waalidiinta u yeero in aysan ba imaamka fadhiyada loogu talagalay ardaygiisa in la hadlo macalinka la hadlo lambarka koowaad lambarka labaad markii homework loo soo dhiibo inuusan guriga kaga caawin mid saddexaad in ardadooda iyo ilmahooda aada iskuulka aysan weydiin dhibaatada ka haysata xagga systemkii iyo nidaamkii si ay waalidku uga qaataan ardaygan sidii nidaamka iskuulka ula qabsan lahaa hadduu iskuulka nidaamkiisuna dhibaato ku yahayna uu uga qayb qaadan lahaa u dhihi lahaa okay waxaana dhibaato nagu yihiin hanala ka daayo laakiin waxa waaye haddii annagu aan ka fariisano oo ummaddii aanan dhex gelin oo aanan ka qayb qaadan nidaamkii oo nidaamkii aanan isku dhibaato inaan bedelno wixii faa'iido oo aanan ka faa'iidaysano ee aan banaanka ka fadhino ardayga waxbarashadiisana aanan qayb ka noqon haddaan ummadnahay iyo haddaan waalidnahay khaasatan haddee waa ka liidanayna xagga markii waxbarashada la yirahdo ardada kale midda kale sinta ummadaha kala duwan iskuul baa dan baa naga dhexaysa waddankan kala diiman waa nahay kala dhaqamo waa nahay laakiin dan baa naga dhexaysa oo in aan qaab nidaamka waxbarasho ka wada faa'iidaysana naga dhexaysa nidaamkan waxbarashada nidaam diimeed ma aha oo waa nidaam secular oo inta ka baxsan oo diin hadda laguma dhigo marka inaan nidaamkii qayb ka noqono laftirkeenu waa inoo muhiim in aan ummadii kala isno ardadii in la isfahansiiyo waa muhiim in fact xaqada markaan ka hadlo arrintii Minneapolis ka dhacday ardadii madowga waddankan Americanka iyo Soomaalida ay ku diriray meeshaas it's unfortunate aad baan uga xumaa waan ka xumahay waa mas'uuliyad isku gabay waa mas'uuliyad ay gabeen waa mas'uuliyad waalidiintu gabeen aysan ilmahooda u sheegin in ay respect gareeyaan oo xurmeeyaan oo ummadda kale oo ka duwan oo fasalada la fadhida ama iskuulka la dhigato Cabdullaahi waxaan malaynayaa mawduuc dheer baan doonaynaa maanta inaanu ka hadalno laakiin arrin baa aad aan jecelahay inaan u taabto oo muhiim ah dadka Soomaalida waa madow midabkayga
hase ahaatee xaqiiqatan soomaalinimada ayaa dadka badankii ayaanu isku tilmaamnaa waxaadna moodaa oo nasiib darro ah dadka madowga ah iyo dadka soomaalida ah inuu macaamilkooda uusan wanaagsanayn dadka qaarkood waxay yidhaahdaan aqoon darra jirta waxaa jira laba nin oo professor ah oo journaalka laga waraystay Star Tribune markay arrintani dhacday waxay yidhaahdeen inkastoo dadkan isku mid yihiin dana laakiin dadka isku dhaqan ma aha kala taariikhda weeye ma oran lahay dadka soomaalida ah ee waddanka yimid inay u baahan yihiin inay bartaan taariikhdii qaas ahaan dadka madowga ahaa ee waddankan Mareykan ku soo noolaa dhibaatooyinkay soo mareen say u soo macalgelin xurriyadda dadka madowga haysto Soomaalidu ay kamid yihiin sida ay ugu soo dagaalameen dadka madowga ah samaxa oran kana adiga ahaan maadaama ka matahay bulshada dadka aqoon-yahanada ah lagaga sameyn karaa mucaamalaad inuu dhex maro ardayda madowga ah qaas ahaan iyo Soomaalida su'aal fiican Ahmed waana su'aal muhiim noo ah anaga oo dhan maanta xurriyadda aan halkan ku hadlayna aniga adigu aan kaga qaadayna barnaamijkan waxa waddanka Mareykanka waxaa keenay dadka madowga dagaalanka waad ogtahay taariikh dheer bay leeyihiin oo adoonsi ah waxaad ogtahay heerar bay soo gaartay waddankan civil war buu ku galay ayaga daraado hal xoreeyay waad ogtahay civil rights movementigi waad ogtahay dadkan dhibaatada ay soo mareen in Afrika laga soo shibgareeyay walaahi wadamada badnaay in Afrika laga keenay waddankan la keenay dhibaatadii iyo utunadii arrintaas u geysatay baa hadda arkaysaa badankood inay qaal ahaan waddankan ugu horeeyay waxa keenay waa gumaysi long term waqti dheer ku socday oo haystay wi xurriyadda maanta aan ku fadhiyana ayaga u dagaalamay xanuunkeeda qaatay lagu garaacay wadooyinka u maray lagu xirxiray dhaqaalii loo diiday waad ogtahay hatta ay muuqato masqulaha qaarkood oo meelaha qaarkood markaad tagto masqushan madow baa leh midaan cadaan baa leh halkan cadaan baa ka cuni kara halkan madow ka cuni kara waxbarashada loo sinayn waad ogtahay in segregation lagu sameeyay Jim Crow waad soo aragtay marka xurriyaddan iyo nidaamkan wax ku baranayno waa mid ayaga aan credit ku siinayno Soomaalidana waxaan rabaa inay ogaato annagu midab ahaan walaalahan waa isla waan isku mid baan xagga midabka waayo Afrika laga keenay haddana waxa waaye we owe them a credit waxaanu waa inaanu credit-kooda aanu siinaa ayagaa nood waddankan u diriray xurriyaddan halkan ku joognana ayagaa keenay aabayaashood baa keenay dhibaatadan iyo waxaan haystana waa wax yimid waxyaalihii dhibaatada hore u haystay Soomaalidu inay fahanto wey numberka labaad anaga community ahaan ummadeena halkan degan St. Cloud waxaan nala haboon oo nala boon inaan aanu gaarno walaalahan la hadalno u furno albaabadeena soo dhaweyno isbaranno iskaalmaysano markaanu halkaan nimid actually isku mid baan noqon waddankan markaa timaado waxaa dadka annaga xaggeena Soomaaliya markaa joognay annagu wax kalaanu isku kala tilmaanaa identity kalaanu qayeelana war adigu yaa tahay reer waqooyi adigu yaa tahay reer koonfur adigu yaa tahay reer hebel waa markii kor laga hadlo hoos u degnana qabiil baan isku sheegnaa ma fahamtay laakiin halkan markaa timaado dadku maxaa lagu kala qaybshaa madow iyo cadaan baa lagu kala qaybshaa markaad form buuxinayso maxaa la leeyahay midabka ma latina tahay ma white baa tahay mise black baa tahay sooma ha marka category-gan ku dhacayna waddankan waa labelka actually waxaan ku dhacaynaa inaanu madow nahay ummadda kalena saas inoo taqaanaa marka halkaa kasoo muuqda aniga Cabdullaahi qofka cadaanka wuxuu arkayaa inaan nin madow ahay ima arkayo inaan nin Soomaaliya aan ahay marka inaanu isfahan abuurno annaga ummadeena leaderska ummadda ka waa muhiim barnaamijkii aanu maanta aanu rabnay mawduuca ahaa I think mawduucani waa mawduuc aad u dheer ahaa cadaaladda bal haddaanu dib ugu noqono waa maxay macnaheedu qaybta labaad oo aragtid inaad ka hadashid mawduucan maanta isdhexgalka bulshada ah cabdow axmedow afar waaniga daayadka yiri 5 rubni buu baalku leeyahay mashruucan isdhexgalka mid waxa waaye qaybinta opportunitieska resource dadka ay xaq u leeyihiin مثلا waxaa kamid ah in la qaybsho oo isku mid loo ahaado shaqada in isku mid loo ahaado representationka in isku mid loo ahaado political representationka in isku mid loo ahaado ka qayb qaadashada arrimaha caa'iliga iyo bulshada waa muhiim waxaa kaloo kamid ah horeyna waaniga u soo sheegay barnaamijkan kale representationka waaniga kaloo soo sheegay hadii la idinkeeda leeyahay ka qayb مثلا waanigii soo sheegay is aqoonsi ummadda inay kala duwanahay inaan aqoonsanaa
inay dumar jiraan inay rag jiraan inay dhalinyaro jirto inay culumad jirto inaan kala dana kala noqon karno laakiin qof walba uu matali karo qofka danihiisa wada waa soo sheegay waxaa kaloo intaasoo dhan dheer social justice muhiimadda ugu weyn integrationka waxa weeye in ummaddu ay hesho cadaalad bulsho markii la helo waxaa ka baxaya system hal dhinac wax u eexinaya waxaa ka baxaya waxbarasho hal dhinac wax u eexinaysa waxaa ka baxaysa dhaqaale hal dhinac wax u eexinaya waxay noqonaysaa ummaddu inay level field noqoto oo isku meel orodka ka bilowdo isku meelna ku tagto marka muhiimadda waxaa kaloon kuu sheegaya cabdo axmedow markaan hadda anagu aan soomaaliya aan tusaale kusoo qaato markaad u fiirsato gobollada soomaaliyeed gobollada horumarku ka jiro waa gobollada kala duwanaanshaha leh waa gobollada 2 qabiil iyo 3 qabiil iyo wax ka badan ay degan yihiin iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo 8 haddaad aragto gobollada hal clan uu degan yahay horumar ma yeeshaan ma gaaro oo fiirsaya ma gaaro tusaale ahaan maxaa been la isaga sheegay tusaale ahaan magaalada Muqdisho waa diversity ummadda dhan baa isugu timaada waxaa la keenaa xirfado kala duwan aqoon kala duwan waxaa yimaada waxbarasho kala dad kale waxbarasho kala duwan leh waxay soo jiidataa dhaqaalaha xagga ganacsiga ah xagga caafimaadka xagga waxbarashada waxaas oo dhan bay soo jiidataa waxay soo jiidanaysaa waxa waaye ninka ganacsadaha wuxuu rabaa meel dad badan oo kala duwan oo wax ka gata ama servicekiisa waxyaalo qanaya ka kala fiisan helo waxa kaloo ila faa'iida skillka iyo xirfadda dadka kala duwan annagu Soomaali baan waa isdhaqaanaa qaarkeen waxa waaye xoolataan qaarkeen beeraley baan qaarneen muruqmaal baan guriyaan dhisan naqaana alwaaxda carpenter kan sameeyna naqaana qaarkeen waxaanu sameeynaa badan ka faa'iideysanaa kalluunka kala soo baxnaa wax kale ma naqaan marka xirfadihii kala duwanaa waxay isugu imaanayaan waa run xirfadihii kala duwan waxay isugu imaanayaan meesha dadkaas kala duwan ay degan yihiin baad ka helaysaa in fact magaalada weyn ee dadka kala duwan waxaad ka helaysaa cuntada midda ugu qaalsan iyo midda ugu hooseysa marnaba ku qadimaysid shin kastoo haysato meesha laftaada wax ka helaysaa waxbarashana ka waayimaysid magaalada Muqdisho magaalada Kismaayo kale magaalada Gaalkacyo kale magaalada Beledweyne oo kale magaalada Hargeysa in ka diversity waa aad u yahay laakiin awal waa ku badnaan jira diversity kala duwanaansho magaalooyinkaas oo dhan waxay leeyihiin kala duwanaansho ummad badan baa ka qayb qaadata oo wada degan oo ka qayb qaadata marka waxay ka fiican tahay magaalooyinka waxayna uga fiican tahay kala waa ummadaas kala duwan ee kala xirfadaha ee degan haddii marka la yiraahdo okay fiirsaya haddii magaalooyinka hal reer degan yahay ay horumarkii ay ka dambayso magaalooyinka reeraha kale wada degan yihiin miyayna tusaale u ahayn integrationku inuu muhiim u yahay inaan promote garayno oo hore u wadno oo nidhaahno okay annaga keliya meeshan kuma koobnaanin waa inaan ummadda kalena noo yimaadaan oo ka qayb qaataan barnaamijkii ay ka qayb qaataan siyaasadeed midkii dhaqaale midkii waxbarasho iyo midkii xirfadeed soo danteenu kuma jirto marka waxa weeye Soomaalidu marka way inay ogaadaan hadda waxaa nagu soo batay barnaamij ah xaqada markii laga hadlo lama qariyo idaacadan waxa way furan tahay qof walba Axmed Wadaad waxaanu ka hadlay wax runta haddaan runta laga hadlin been baa qarsoon hadda waxaa nagu bilaabatay annaga reebel baan halkaan oodanayna annaguna reebel baan halkaan oodanayna annagu reebel baan halkaan oodanayna anoo qolo gaar ku jeedin marka annagu reebel hadaan oodanno miyaanan caqli lahayn oo fiirin karin kuwii horay u ootay oo halka magaalo kaligood degan inaysan horumar ka gaarin miyayna faa'iido noo ahayn inaan ummadda kala duwan aan entertain garayno oo soo dhaweyno oo ka qayb qaataan dhismaha magaalooyinkaas barnaamijka siyaasadda barnaamijka matalaadda barnaamijka dhaqaalaha soo muhiim ah waxaan arki jiray anigu Soomaaliyan joogay waxaan arki jiray meel xataa qofka guryaha dhisa injineerka laga keeno magaalo kale oo ayagii dadkii magaaladaas ay samaysan kareen waayo reerka meesha degan waxay leeyihiin xirfad ka duwan bay leeyihiin oo beeraha mesela ka soo qaad beeraha marka waxay u baahanayeen dadka xirfad ka duwan marka xirfad nooc walba leh yaad ka helaysaa magaalooyinka la kala degan yahay waxay hadda aado weeye Soomaaliya aan barnaamijka aan xagga u qaado intaadan ka gudbin xagga Soomaaliya waxaan jeclahay su'aalan ka weydiiyo
intiisan dagaaladu ay dhicin ka hor anigu waxaan ka mid ahaa dadkii xamar ka soo kac baxay waa runta waxaa laga yaabaa dadka xamar joogay qabyaaladu ma jirin inaadan aqoonin ardayga iskuulka wada dhigatan qofka aa wada shaqaysaan qabiilka uu yahay hase ahaatee laakiin dagaalkii Soomaaliya waxaa ka dhalamtay fidmooyin aad u fara badan fidmooyinkaas waa kuwa wadankii Soomaaliya dadna kala qaybiyay oo dad qaxooti ka dhigay ummadii Soomaaliyeed kala baabiyay qaarkoodna ay kala qaybiyay oo tuulooyinka ku kala xirxiray dadka qaar baa hadda waxay ka digaan in Soomaaliya sidii hore oo xamar hal wada aada ahayd lagu noqdo ay wanaagsan tahay degaan walba inuu u baahan yahay in la soo dhiso marka sidee la isku keenayaa labada fikir ah waxaan ku waafaqsanahay magaalo walba oo Soomaaliya tusaale ahaan gaalka soo qaatay Ceerigaab oo kala aanu soo qaadano Kismaayo Beledweyne magaalada la yiraahdo Gooyo oo kale Muqdisho Xamar magaalooyinka sideedaba magaalo noqota waa magaalo ay degan yihiin dad kala duwan oo kala qayla ah taana waxaad keenayay dadkii oo dadka Soomaaliya iska xoolay bay ahaayeen magaalooyinka qaarkood waxaan u malaynayaa waxayba ku dhismeen dad reer miyi ah oo say ugu soo degayeen magaaladii naatay haddaba sidee xilligan hadda la jooga oo Soomaalidii ay aad u kala qaybsan tahay loo soo celin karaa inay bulshadu is aaminto ninkii xamar guriga ku lahaa oo kalsooni gurigiisa ugu noqon karo ninkii xamar joogay Kismaayo uu ugu noolaan karaa ee rabay ama gaalkacyo ama Hargeysa aan raahna inkastoo Hargeysa aad ka yar duwan tahay barmanaya Soomaali ahaan ay u duwaneen laakiin political future-ka aan la garanayn siday ku dambeyn doonto see bay kula tahay heli karaa in la soo celiyo is aaminaansiga bulshada Soomaaliyeed ee ahayd in magaalada faa'iido ay ugu jirto wadago lagu soo dhaweeyo dadka aan u dhalan deegaanka ayna yeeshaan xuquuq la mid ah xuquuqda dadka deegaanka iyo macnaheedu representationka matalaada siyaasadeed iyo dhaqaale Axmed waa mahadsantahay waa su'aal aad u muhiim ah su'aal weyn oo waxyaalo badan ay soo galayaan barnaamijka ka hadlayso waa barnaamij unitary iyo federalismka laakiin waa barnaamij weyn oo u baahan maalin asagana inaan isugu soo noqono doodisha oo aan ka hadalno federalism maxaa waaye unitary system maxaa waaye muxuu faa'iidaha u leeyahay muxuu khasaaraha u leeyahay anagoo u fiirinayna sida uu yahay anagu kaan jecelahay adu ka jeceshahay hebel ku jecel yahay aysan ahayn mid walba faa'iidadiisa qisaaradiisa qiyaasayno fiirin doona waan maalin kale inaan ka ballanaa waana muhiim laakiin asaga kaligiis baa u baahan inaan waqti siin laakiin midka hadda aan ka hadlayo waa integrationka waa runta representationku waa muhiim wuxuu muhiim u yahay wax la yiraahdo caalamkan waad aragtay hadda Mareykanka aan joogno dadka qaarkood waxay dhihi doonaan waa Mareykan buu ka hadlayaa oo Soomaaliya Mareykan see lagu apply gareyn karaa waxa ka jira well siday Mareykanka markii la fiiriyo dimuqraadiyadda xaggeeda ka walaba sababkan kaga leenahay inuu ku sheegay anuu Soomaaliya waxaan taaganahay nin wax ku qasbay nin kale wax ku qasbin qolba xorriyadiisa laakiin waxaan fahmi la'anahay war nin walba wax kale wax ku qasbin ha ahaatee waa run taas oo isku raacsanay hadda midnimada wadanka la cusub hal jahayo representation kana hal noqdo mid nidaam sax ah ama ha ahaado cod ha ahaado lagu kala qaado midan integration kan ka hadlayo Axmed waxa waay aniga let us say waxaanu qaadanay federal system which is hadda oo dastuurka ku qoran inkastoo dastuurku uusan qeexin nidaamka oo survey miyaa lagu qaadahaya mareer baa la isugu leenayaa maxay yahay xiriir dawladda dhexe iyo midda gobolka ka dhaxayn kara maxay tahay awoodda midda gobolka maxay tahay awoodda midda federaalka dawladda dhexe resources loo qaybsanaya midaraad say u dhacaysaa waxyaalo badan baa u baahan in la falanqeeyo hadda baarlamaanka lagaga fadhiyaa inuu acta parliament ka soo saaro barnaamijka federalism systemka soo inaan fahno hadda magac ahaan buu u yaalaa laakiin magac laba gobol iyo wax ka badan baa isugu qoraya inay noqon karaan laakiin waa labada gobol iyo ka badankee mareer baan isku raacayna mise iskuma raacayno istiraatiijiyad baan isku raacayna maxaan isku raacayna iga qor hadal haddii federal system uu dhasho hadalka maanta iga qor on the record ha ahaado haddii federal system uu noqdo qolana ay isu keensato dad kala duwan ay isku raacdo qolana ay isku raacdo reer
waxa horumarka xaggii mar walba aadi doona ogaan doontaa qolada isku raacda ummadaha kala duwan. okay hal su'aala ka weydiiyo ta haddaan intaa ku dhaafno xagga Soomaaliya waa maxay faa'iido darrooyinka ka yimaada sidaas kale isdhexgalka bulshada qaas ahaan marka la isu keeno bulsho aad u kala dhaqan duwan ama bulsho maxaan ku rahdaa fikirkooda kala duwan yihiin tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaato wadamadan hadda aan joogno Mareykanku ma had gobolkan aan ku noolnahay dadka cadaanka ah iyo dadka madowga ah waxa laga yaabaa inay aad u kala qaybsan yihiin iskuul walaada isku meelshna waa laga shaqaa laakiin bulsho ahaan dadku way kala qaybsan yihiin Canada ama Toronto magaalada la yiraahdo waxaan ku arkay bulsho isdhexgal qaas ahaan xagga iskuulaadka maadaama uu diversity ku badaya taa waxay keentay in aad aragtid mararka qaarkood qof Soomaaliya oo 20 iyo xoogaa jira oo waalidkii la nool oo aanan aqoon luqadii Soomaaliga ama waxyaalo badan kala fikira marka qasaaro ma mujtamaca ma uga iman karaa xagga dhaqanka isbedelka madiinta haddii uu qofku uu dhex galo bulsho aan la dhaqanahayn حتى Soomaaliya waxa jirtay dawladii markii gurmadka ardayda la oran jiray koonfur laga qaadi jiray waqooyi la geyn jiray waqooyi koonfur laga qaadi jiray faa'iido way keentay sidaas oo kale ciidamada bedelkoodii iyo nimanka maamulka iyo saraakiisha marka inta ka qaadido gobolka Geesid waxa laga yaabaa bulshada gobolka ugu tagay inuu si xun ula dhaqmo faa'iido darro ma keeni kartaa isdhexgalka bulshada maxaase qofka tababar ahaan loo siin karaa inuu fahmo dadka dhankooda inta aan loo geyn bulshada أحمد ومهم لكن أنت هذا خسارة أنا جنورت بعيدا عن شيء خسارة أنا أخر مرة laakiin de Soomaaliya dad tusaale ahaan qasaarada ugu weyn waxa keensaday dadka aan u dhalan oo degaan ayaan ahayn la geeyay hawa see labadaba waa sheegaya okay horta isdhexgalku wuxuu yareeyaa xaqada marka laga hadlo in faqriga wax la yiraahdo kas qofka hadii oo loo ogolaado inuu si xor ah uga qayb qaato bulshadiisii oo xaq u yeesho inuu wax asaga la talo qayb qaato nidaamyadii la jiray institutions sida midka waxbarashada midka caafimaadka iyo midka dawliga ah oo civic ah iyo midka deegaanka iyo midka caayiriga iyo midka dhaqaalaha inta ka qaato waxay uplift gareynaysaa ummadda hoose oo ka soo qaadaysaa faqrigii oo kor keenaysaa talabaad waxay baabi'isaa markuu qofku matalayo dad hooseeya waxay baabi'isaa dadkaas sharciyo kullida inaan soo saarin wad ogtahay wadankan hadda magaaladeena Senegal ninkii naga matali jiray oo hore naga matali jiray waa kii mar isku dayay in uu legislation sharci ka soo saaro xarimaya xijaabka in gabdhuhu ay saartaan xijaabka marka sawirka ay dhiiga ay qaadayaan waatii Soomaalidu ay aad u soo baxday umada kale aad u soo baxday waatii laga diiday waa kii u socon waayay laakiin haddaanu ka qayb qaadan nidaamkaas oo kale sharciyaas oo kale waa nagu fulayaan oo haddana ka qayb qaadan nidaamka siyaasadeed marka danahaaga dadkaaga inaad ka difaacato siyaasadda oo wax adiga liddi kugu ah aan laga meelmarin oo lidku waxbarashadaada dhaqaalahaaga caafimaadkaaga xorriyadaada shaqo iyo midaada caa'ili ah inaadan dhibaato aadan kala kulmin ummaddu inay ka qayb qaataan inay dumarka iyo dadka oo vulnerable-ka hooseeya la empower gareeyo ka qayb qaataan nidaamka siyaasadda inuu ogaado qofku inuu nidaamkii dawliga ah iyo nidaamkii caa'iliga ah iyo midkii bulshadeed uu qayb ka yahay oo uu go'aankeeda wax ka gaaro oo codayo soo baxo taasoo faa'iidooyin inay ummaddu isdhex gasho ay yareyso dagaalada iyo khilaafaadka sida dagaalada hadda aad sheegayso kale inay yareyso waayo markii ummaddu ay tahay isla jiraan ummaddu isdhex gasho waxa dhalanaya inay yaraato nidaamkii cuqdadii dadku isu qabeen cuqdadii markay yaraatana waxa dhalanaysa in ay dadku isfahan ka dhashaan qasaarooyinka markaan usoo galo taas faa'iidooyinka ka baxo waa run wadankan waxaa isugu yimid dad kala diima ah oo kala dhaqana oo kala aqoon oo kala dhaqaala sidaas ay tahay waxaa qolo walba haysataa diinteedii principles-keedii way ku dhiganta laakiin haddana waxaa naga dhaxeeya wax kala naga dhaxeeya waxaa naga dhaxeeya iskuulkii waxaa naga dhaxeeya meesha caafimaadka waxaa naga dhaxeeya matalaadii waxaa naga dhaxeeya dawladdii waxaa naga dhaxeeya wadadii waxaa naga dhaxeeya dhaqaalihii kulli waa naga dhaxeeya laakiin maxaan kala duwannahay diimiheen valueski moralki wixii baan kala duwannahay waxaan kala duwannahay luqadii baan ku kala duwannahay
inkastoo aan luqadda af ingiriisiga isugu imaano marka waxaa la rabaa qofka soomaaliga inay kala gedisan tahay waxyaalaha uu ku dhegan yahay inuu ku dheganaado oo haysto diintiisa uusan ka fogaan dhaqankiisa uu ku dheganaado haddana sidaas ay dhaqankiisa luqadana aan la lumin ogaada waxbaan idin sheegay soomaalidan hadda magaaladan St Cloud degan dhalinyaradii waxaan ku arkay af ingiriisigana waa lumay af soomaaligana waa lumay labadiiba marka wuxuu isugu kaadarayaa dhowr xabo af ingiriisi iyo dhowr xabo Soomaali sidan Kenya markaan soo maray Soomaalida joogtay qaarkood ay af Soomaaliga iyo af ingiriisiga isugu kaadari jireen oo jacab isugu sameyn jireen marka luqadda Soomaaliga in la barto waa muhiim in ma lagu tarbiyeeyo waa muhiim laakiin hadana luqadda kale waa in la bartaa Soomaaliya ba hadaan rajo ka qabtid inaad ku noqotid luqadaada waa inaad sii dayn waayo mid kale qofku quality ku leeyahay oo hadda ummadda kale ankee ay ku tixgelinaysaa oo respect ku siinaysaa marka tahay qof dhankiisa diintiisa iyo luqadiisa ku dhagan laakiin dhaqamada kale iyo haddii kale waxbarashada kale inta ummadaha kale ku fiican yihiin ka qaata qof fiican baa noqonaysaa marka ilmaha iyo dadka dhalinyarada waa in loo sheegaa principaleskooda inay ku dhaganaadaan ay haystaan laakiin ayna ka qaataan inta wanaagsan ummadaha kale aad baan u gartay hadalkaas inaad bulshada aad dabal nooshahay aad ka qaadatid waxa wanaagsan xaqiiqatan waxaad moodaa wadankan aan hadda ku noolnahay waxyaalaha ugu wanaagsan oo ku dhisan yahay ayaa waxay ka mid tahay inuu qof walba waxa uu ku wanaagsan yahay ay bulshada inteeda kale ama xag dawlad ahaan ama xag aqoon ama waxbarasho dadku ay uga faa'iideystaan haddii xagga waxaad markii hore aad ka dhawaajishay shaqooyinka in faa'iidooyinka bulshada isdhexgalkeedu oo ka mid yahay shaqooyinka fursad shaqo in furto bal taa wax ma nooga sheegi kartaa faa'iidooyinka xagga macnaheedu shaqooyinka بسم الله الرحمن الرحيم تاس مهم عاد integration wax muhiim yahay qofka inuu shaqo umad inuu shaqo hesho waxayna muhiim ugu tahay dadka wax shaqaaleeya haddii aad ummadda dhex gasho oo dhaqankaaga barto oo ay ku bartaan ay ku ahaadaan dad wanaagsan ay ku arkaan inay access-ka shaqada ku leedahay haddii aad presentation ku leedahay oo lagu matalo in qof ku dooda in ay ummaddu u helaan equal opportunity inay u helaan xagga shaqada oo shaqada ay u helaan fursado isku mid ah وهدي الجوم تلو مد اللي جامد تلو waxay kaloo samaysaa markii ummaddu ay ka qayb wada qayb qaadato barnaamijka shaqada inay samayso economic opportunities ay u samayso economic opportunities in terms of ummadii markay wada shaqayso dawladda cashuur baa soo gelaysa qofkii wuxuu koreysanaya guryo iskuulku iska bixinaya spending wax la yiraahdo sameynaya marka wax la yiraahdo ka dhasha ayadana integration marka waa muhiim in matalaada xagga siyaasadda xagga bulshada iyo xagga community-ga aanu ka qayb qaadano waqti aan u noqono oo shaqadan aan access ugu helno aanan nala ku jawrfalin xagga shaqada magaalada iyo area-da aan online hatta barnaamijkan Soomaaliya laftigeeda oo ku apply oo haddii ay ummaddu qolo walba hesho iyo qof iyo demographic walba iyo nooc walbaba ay helaan dad matala waxay ilaalinayaan danahooda xagga shaqada helitaanka shaqada arrintaas shaqooyinka haddaan wax kaa weydiiyo waxaan hadda ka hor muddo aan ka shaqeeyey xafiiska workforce-ga ee loo yaqaano ahna meelaha ay dadku shaqooyin ka caawiya xataa leh barnaamijyo oo development-ga xagga ganacsiga oo kale hormariya tababaro siiya shaqaalaha xilliga unemployment-ga lacagta qofka shaqaalaha micnaheedu laga caawiyo waxbarasho loo diro maadaama arrinta xagga shaqooyinka aanu ka hadlayno mar baan waxaan aad isu weydiiyey hadda ka hor xootiga dad baa isweydiin jireen why Mareykanka la idin geynaya laakiin anigu waxyaalaha aan ogaaday waxaan ba ogaaday in ay dadka Mareykanka waxyaalaha ay fiirsadaan ay sidii ay u heli lahaayeen shaqaale jaban oo marka dhaqaalahoodana uu horukac u sameyn lahaa taasina ay tahay fahan ay fahmeen faa'iidada uu leeyahay qofka bini aadanka ah kana faa'iideystaan xoogiisa waxaad ogtahay hadda gobolkan haddaan joogno shaqaale badan oo ayaan ka shaqeyn dad kale ayaa wax ka shaqeeya Soomaalida kambaniyada hilibka oo kale kuwa digaaga oo hadda aad ugu badan yihiin dadka Soomaalida kana faa'iideysteen sootana ay tiraahdo dadka Soomaalida ee shaqooyinka noocaas oo kale ah aad bay uga faa'iideysteen hadda tiraahdo Soomaaliya waa lagu apply gareyn karaa waxaa jiray dadka Soomaalida waa wada shaqo la'aan
sidee loo abuuri karaa in ay dadka Soomaalida ay gartaan caqliga dadka kale ay gartaan oo ah inay ka faa'iideystaan dadkooda xoogooda inta ay dili lahaayeen ama ay cayri lahaayeen magaalada ka cayri lahaayeenba أحمد ما أنت برنامج كان يرادو social integration كمثلا سنتي يصلح كلك أمضى وحقيب كا إن أو يرى برنامج كاس أو أبوره فرصة الشقة قدرت كوا أبوره example واحد كم إذا تصالحان هاتو حنليا بأحمد وكنت كوشة معلومة بالتي في يدان فرسنا سومالي ودكتور هنيجا هذا يونيفرسيتي يو اس ان تي في يو كل جودان فرسنا يتكجرين من لكن واحد وقتها markay umada diaspora noqonaysa especially umadan ka tagaysa Europe inay geyso meeshii hotel shaqada kaliya source kaliya ay geynayaan waa hotel hadee hotelada de shaqo badanna ma abuuraan waxan ma dhoofiyo umadana wad ogtahay wadanka wuxuu dhaqaalihiisa ku soo kobcaa waa GDP-gana waxa waaye waa kala jarida markay umada wadanka wuxuu dhoofiyo iyo wuxuu soo dagsado marka wadanku wuxuu dhoofiyaa baana dhaqaalihiisa ku kobcaa markii production wadanku inta leeyahay wax abuuro oo dibadda u diro oo dibadda ku beecayo markaas wadanka dhaqaalihiisa kobcaa wuxuu u kobcaya waxa kamid ah dadkii productionkii ariis wuxuu keenayaa umad ka shaqeysa inuu hesho marka production uu ka jiro umadii ka shaqeysay marka alaabtii dirtana waxa la soo noqonaysa currency lacag baad la soo noqonaysa alaabna waad gudbinaysaa moogsoonta laakiin dhanka kale markaad wax ka keento mesela dibadda wax ka keento oo dibadda wax ka soo waarido oo wadankii keento wadanka lacagtiisa waad geynaysaa waad qaadaysaa wadanka kale geynaysaa waad soo keenaysaa waxaad keenaysaa ama dhagax ama mutuleel ama wax la cuno wixii la cunayna beris wax waa la xaaraya waa la saxanaya wax xaqiiqa annagoon ka xishoonayno inta sheegay marka wadanka dhaqaalihiisina lacagtina waad dhoofinaysaa waxaad keenaysaa wadankii asaga dhafsi laga abuuri karo marka barnaamijyada waad aragtay hadda Mareykanka dadka ka noqda anigu waxaan ku kalsoonahay dadka Mareykanka ka noqda inay wadanka aad wax uga qaban karaan compare dadka Europe ka noqonaya inkastoo de habay ugu jirto dadka bias laakiin waxa waaye waxaan arkayaa meesha uu ka geynayo hotel uu dhisayo 10 milyan oo $15 million ama $5 million 5-star hotel even though loo baahan yahay samado laakiin haddana waxa waaye inuu dhiso warshado 4 warshadood 5 warshadood warshada saacada saliida midda samaysa saliida midda samaysa cananaaska boor garaysa midda caanaha midda bacaha samaysa midda samaysa kalluunka gasacday soo dirta midda hilibka lagu qalo hilibka dhoofisa midda digaaga midaan oo kale hadda halkan ku kale in dad shaqo loo abuuro dadku shaqaystaan adiguna wadankii aad dhaqaale keentid oo wadankii aad u samaysay venue iyo wada aad u furto wax ku dhoofiyo dhaqaalana ku soo galo dadku sustain gareeyo marka waxa umada Soomaalida marka inay isku biiraan 2 2 3 3 4 4 wadankii warshada geeyaan dhalinyarada dagaalkii ka gubatay wariga wax ka raadiyay in shaqada loo abuuro ayaguna familiyadooda ku noolaadaan wadankuna dhaqaalihiisa ku kobco adiguna aad faa'iido ka hesho yaan anigu dhiirigelinayaa intii dadku ay hoteelada ku bartami lahaayeen Cabdullaahi waagan aan ku sheegay xafiiska aan ka shaqeyn jiray waxa jiray dadkan hadda la yiraahdo dadka shaqaalaha tababaraha ama shaqeeya way wareystaan dadka ama dadka ganacsiga way wareystaan qofka marka ay ogaadaan waxa uu ku wanaagsan yahay ayay qofka marka la raadiyaan wax uu rabo dhibaatada ugu weyn hadda Soomaaliya ka jirta anigu waxaan u qaadanayaa dadkii aqoon fikir ka duwan fikirkii ma laha هذا أنت كتجي هوتيل بعد طيب اللي نيكي عبد الله هوتيل بودسته هوتيل كو خلقعي أديكون هوتيل دسو لكن مجرو حرمة أي دتك تكان أو دتك سياح تلوين تصارحان وحيلها توليك فايدة سكت دتك هورا لوجا فايدة وحكم ده وذوك تكبها وفي عن طلياني جالس مينشري هرجنا ميلها وين وكقاعدين شري وحكم ده الصوماليا وحوله وكوب ذي مجموعة دتك قبل اللي يراد ربوها وعدد وحصو صار له أيها كم ده دتك كبها يحرقها بورسوين كيوحيلا النوع السمينشري إن سيدو خلي Soomaaliya موسكيدي وكان طليانيgu dib loogu soo noqonayo mooskeygi waa rabaa aan hadaad fiiriso dadka Soomaalida ee dhaqaalaha leh ee dhaqaalaha haysta ee wadankii dib ku noqonaya waxa dhul aan lahayn dhagax wanaagsan leh oo laakiin dadkii ayaan aqoon u lahayn dhul waxa jira shidaal leh sida aad sheegtayba dhul waxa jira kalluunka ku wanaagsan hada aad sheegtay dadka dhaqaalihiisa waxyaalaha kabo waxa kamid ah waxa uu dhoofiyo maaha waxa uu soo dejiyo Soomaaliyana waxa dukaamada yaala oo dhan waa wax la soo dhoofiyo حتى كبيه براوها يو معوسية يمريه واحد مودا حتى إني مش كبحين وما وحيالات سلا دتك شقوين ويكو أبوري كران ويكجن عسان كران شقالنا ويكوش على سان كان أيجنا فائدة هديلو فيان ودن كي سجوا كيل كلام حاكم هذا أحمد وحيالها وبدنا إنه فهرنا وضح وحلي هذا human capital
in resourceka ugu badan ee waddan uu leeyahay ay dadka yihiin, dadka laftirkooda aysan ahayn beer, aysan ahayn shidaal, aysan ahayn macdanta dhulka laga qodo, ay tahay waxyaalaha resource number 1 oo waddanku leeyahay oo human capital. waddankana waxaa la rabaa in hataa gobollada inay siyaasad ay ku wajahaan ay leeyihiin dadka loo tababaro xirfado ay ku shaqaystaan oo kaga shaqaystaan xagga productionka wax soo saarka. marka anaga conceptigan ku jira waxay tahay hadda meelaha Soomaalidu ku shaqaystay markaan tagtay iyo meelaha kale yaadeen adigu baa ogna waxaad arkaysaa ummaddu inay aragto okay gobolkeenu wuxuu leeyahay waxaas ka soo baxa okay runta idin sheegay dawladaha waxyaalaha ay ku taajiraan numberka koobaad ma aha dawladdu intay jirto sano, ma aha dhaqaalaha dhulkeeda uu leeyahay resource-ka waddanka gudihiisa ku jira, ma aha ma aha waddanku intuu leeyahay weyninka, ma aha badida waddanka intuu leeyahay, intaasoo dhan midna ma inaysan ahayn adduunka ugu waaweyn waxaa ka mid ah Egypt ugu dawladnimo asaaskeeda, Ethiopia iyo Greek. dhaqaalahan axmed waa isogna meesha jiraan maanta Ethiopia iyo Egypt waa ogna meesha ku jirto, Greekana waad ogtahay shaqaalihii inay suuqa isku eryanayeen. waa run. marka waxaad iga qortaa halkaa iga dhig in waddanka intuu sano oo waddan ahaan iyo dawlad ahaan u jiray in aysan keenin waddanka qaalis. numberka labaad ma keeno waddanka intuu leegyahay. waddanka la yiraahdo Denmark, Norway, Denmark iyo Switzerland waa wadamada Switzerland baan u sii batay waa wadamada chocolate ugu badan. waddankooda waa yari chocolate soo saar caanay keensan alaabta raw material soo dhoofiyaan caanaha isaa u supply gareeyaan Europe baalki chocolate Europe ku supply gareeyaan warshaday u samaysteen adiga adoo caanaha gal ordayeenaysa chocolate iyo waxba ka sameynayaan raw material soo qaataan chocolate ka sameynayaan dib baa lagu soo diray adoo chocolate adduunka oo dhan bay kala geynayaan kana qiimo badan markii hore isan bislayn kana qiimo badan waa la process gareeyay dadka shaqeeyo shaqaale lacag ku qala process gareeyay waa la xirxiray waa la dhoofiyay waddankana dhaqaale ku soo gashay dadka waa ka shaqaysteen dhoofintiisina waddanka GDP-diisina ku bato. waddanka Japan la yiraahdo beera ma dhulku beera qasab ma okay waxa ku ogaanaysaa dhulku inuusan macdantiisa lahayn waddanku taajiro oo dhaqaale yeesho. waddanka Japan la yiraahdo kale waddanka Japan la yiraahdo 80% waa buuro. Soomaalida hadaysan aqoon Japan baa waxaan soo saaray Japan baa soo saaray kasi wada aragtay electronic oo Japan baa ku qoran inta badan ha ahaatee ma ognahay Japan 80% inuu buuro yahay gabigiis cuntana ma waayaan waana wadamada ugu taajirsan GDP-ga G8 ku jira oo wadamada ugu dhaqaalaha adduunka ku jira. haddana waxa waaye waddankaas 80% buuraha ah maxay sameeyaan waxay soo dhoofiyaan alaabta cayrin dadkooda waxay u bisiliyeen alaabta cayrin bay keenaan warshaday samaysteen way process gareeyaan dib bay u dhoofiyaan adduunka meelaad ka arkeen Japan made in Japan oo electronic ma arkaysa Ahmed including this country waddankan Mareykanka markii lagu daro marka way suuq geeyaan dawladda yaraanteeda oo ma aha qadiimina ma aha مثلا hadda New Zealand oo kale iyo Australia oo kale waa wadamo dhow weey waddan ahaan markay noqdeen haddana waxa waaye waa wadamada dhaqaalahooda sareeyo. marka waa inaan ogaanaa all this country kuwa fagroobay oo hooseeya iyo kuwa dhaqaalahooda kobcayba waxay ku xiran tahay attitude-ka iyo qaabka ummadda ay shaqada u wajahdo iyo human capital. ummaddu hadday tahay ummad shaqaale u diyaarsan iyo dadka businesska oo warshado u sameeya dadka fadhooda sidoo shaqo uga helaa u abuuri lahaa shaqo waad aragtay waddankan Mareykanka ka magaalada joogna Axmed waad ogtay markuu yiraahdo qofku intaas oo shaqo baan abuuraya warshad baan sameynaya waad aragtay loan baa la siiyay baa la siiya dhul bilaash ah la siiya canshuurta loo dhaafaa waxaas oo dhan loo sameeyaa why because dadka baa ka shaqeynaya hadda company baa la dhisaya 200 qof buu qaadanaya inuu 200 qof qaadanaya daraad yaa dhulna siiyay dayna lagu siiyay. marka markuu shaqada abuuro dhaqaalihii magaalada soo qaybanaysa dad baa shaqeynaya kuliyaysanayaan waxbay gadan si kala dawladdu canshuurta uga helayso dhaqaalihii u soo socoshanaysa. marka dadka ganacsatadana waa inay hirgeliyaan barnaamijyada wadaha yaryar oo 200 milyan-ka la hirgeliyaa dadkan ay u tababaraan sidii warshadahaas uga shaqaysan lahaayeen. ma aha dhulka ma aha dhaqaalaha ma aha dawlad la'aanta waxa waaye waa aragtida ummadda in wacyi geliyo
shaqadana loo diyaasho. hal su-aala waxaa tiri waxaa ugu qiimaha badan waa bulshada ama dadka maalgelinta lagu sameeyo waddan haddaanu joogno waxaa jira barnaamijyo fara badan oo loo sameeyo dadka jecel inay tusaale ahaan wax bartaan jaamacadaha waddankan badankood waxaa laga bixiyaa lacagta qofka dhaqaaluhu helaa guryo waxaa jira la dejiyo qofku markuu waxbarashada ku jiro si qofkaas markuu noqdo aqoonyahan oo mujtamaca dib u anfaco hadda madaxweynaha waddanka Obama waxyaalaha uu aad rabo inuu wax uga qabto waxa weeye in dadka dib iskuulaad ay u galaan tacliin dheeraad ay soo qaataan si ay u bartaan ama ay u abuuraan shaqooyin ama xirfado aan adduunka hadda laga isticmaalin ama technologically ay aad aqoontooda u kordhiyaan bulshada aqoonta kuma fiicna waxbarashadana kuma wanaagsana waddanka Soomaaliya la yiraahdana intii dagaaladii deegaanada qaarkood marka laga reebo aad bay dadkii waxbarashadii dib ugu dhaceen dibadaha kuwa joogana dadka wax ma bartaan sidee dadka Soomaalida ay loo soo saari karaa marka mujtamac waxtar leh oo aqoon leh oo waxa dadka magaaladeeda waxa arkaysa qofka Soomaaliga waa shaqo raadiye marka la weydiiyo qofka dhowr iyo 20 jir maxaa rabtaa wuxuu ku leeyahay labor job oo waxaan rabaa ama assembly qofkii wax sama yaqaano alxanka ma yaqaano sida looga shaqeeyo tuubooyinka ama waxaan balambarka leeyahay ma yaqaano korontadii ma yaqaano dhismii qofkii yaqaano wuxuu yaqaano qofkii ma leh wuxuu wataa kaliya xoog see marka dadka Soomaalida dhibaatada marka meel walba ka haysata aqoon loo sameeyo shamac Soomaaliyeed aqoona xaqiiqatan waxaan u maleynayaa waddankayaga haddii dadka aqoon ay lahaayeen qoriska ma qaateen oo ma burburiyeen wax walba see marka dadka Soomaalida aqoontooda loo dhisi karaa loogu dhiirin karaa waxbarashada wax muhiim ah waxbarashada muhiim u tahay wax walba oo asaasi ah nabiga sallallahu alayhi wasallam markii xadiisku yiri iطلبوا العلم ولو بالسين waagaasna way arkayd shiinaha in la gaaro marka Australia jooga oo Sacuudiga jooga baa wuxuu yiri cilmiga raaj shiinana awada shiinaha haddaad rabtaan oo ka gaartaan ka soo heshaan waxa kaloo nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiisku yiri الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها حكمته وحوي وناكو أقومت حكمته أقومت وبعد قفك مسلم كا مال كستا وكهلنا وكقاطع أما قال كهل أما حاران كهل أما ميت كنا عب كهل وكو في عين الله قارا بكس أديك بعد دوي بعد هذا هشوي معناه هذا معها قفك عند سكوجرها فيلن كقاضي وحوي Soomaalida walaalo attitude-kooda hadda waa run dadka waa haystaa dad ku fiican ma aha ma dhihi karo Soomaalida waa dad very smart smartiga laakiin aqoontii qaasaan aqoontii farsamada ka hadlaysa okay Soomaalidu waxay muhiim u tahay waxa muhiim ah in ay u soo jeestaan waxbarasho u soo jeestaan hadda walaalo barnaamijyada jira hada kolleejyadan iyo jaamacadaha laga baxsho farsamo waxa kamid ah mid kuwa 6 bilooda waxa kamid ah sanada waxa kamid ah pharmacy technician oo 6 bilood oo 8 weeks oo state license ka qaadan pharmacist waxa jira farsamada gacanta baawarta lagu sameeyo waxa jira kuwa alxanka waxa jira kuwa carpenterka guriga dhiska engineeringka waxa jira kuwa mashiinada lagu shaqeeyo waxa jira waxyaalo yar oo 6 bilood sada inkastoo luqadda dadka ay ciirayso haddana luqadda laftigeeda walaal ma dheera waa 6 bilood baa lagu baran karaa Umar ibn Khattab baa waxa laga sheegaa saxaabadiisii oo saxaabtii wuxuu weydiiyay waxa adduunka ugu awood badan ma taqaanaa markaas waxay dhahaan waa buurta markaas buurta ugu weyn waxay dhahaan buurta waa wax weyn oo la move gareynka mayo buurta uma adka buurta birta ka adag birta yaa ka adag birta way duleelin waa booldo sabuurna u qaada birta ka adag birta waxa ka adag biya bay dabka ka adag birta waa aragtay markii dab la soo dhaalasho qaadanaysa biyo noqonaysa buurta waxa ka adag birta waxa ka adag biir dabkana waxa ka adag dabka waxa ka adag marka waxa ka adag biyaha dabkii waxa daminaya oo ka adag waa biyihii waa daminaya biyaha maxaa ka adag daruur dabeel baa wada biyaha waad aragtay haantan aad arkayso roobkan aad arkayso daaya waxa wada dabeel bada oo meel ka qaadayso meel geynayso dabayshina ka adag bini aadamka wuxuu ka dhisanayaa guryo caves waad aragtay ma tuurayso waa ka soo haraya beerada faradhay waa taagan yihiin bini aadamka ka soo hara ayadana dabaysha bini aadamkana waxa ka adag hanka qofka ambition wada qofku waa inuu san moolaan u dhiman og yahay inuu wax qabsan karo
inuu wax baran karo wax tabcan karo wax noqon karo hankaas baan rabnaa Soomaalida hankii lagu yaqaan inay tii ay taagnaadaan baa la rabaa inay iskuulka iyo isku wadaan shaqada la rabaa in ay wax bartaan oo dad hankooda kor u qaado madaxooda kor u qaaday ay noqdaan baa la rabaa hankaas yaa muhiim ah qof afraad ah annaga bulshada oo hadda barnaamijkan laftirkiisu qayb uu ka yahay wacyigelinta ummadda barnaamijkan waa muhiim in aan wacyigelinta ummadda ka qayb qaadano inkastoo aan jeclaan lahaa ummaduna inay ka qaadato laftirkeedu aad samaysaan qaab ay ummaddu ku soo wacdo telefoonada ka qayb haddii ilaahay ma insha Allah mustaqbalka way ka qayb qaadan doonaan barnaamijyada noocan oo kale ah waxay ka mid doonaan haddii ilaahay idmo raadiyahan St Cloud Somali Radio oo leedii ka soo deeyay jaamacadda magaalada St Cloud State University ee gobolka Minnesota Cabdullaahi waxaa noo dhiman daqiiqada yar ah inta aan ugu talagalnay barnaamijka maxaa ku soo gabagabayn lahayd oo mujtamaca isdhexgalka arrin ku saabsan ee isdhexgalka bulshada bismillaahir rahmaanir rahiim barnaamijku baanu ka hadalnay Axmed inkastoo aan jeclaan lahaa inaan xabadno waxaan ku soo gabagabayn lahaa ummaddu inay nacfi ku leedahay oo wanaag ku leedahay inay wada degto inay wada noolaato inay sinaato inay ka qayb qaato barnaamijka shaqaalaha iyo midka wacyigelinta iyo midka shaqadaba intaba iyo shaqo abuuridaba lagana talageliyo ummadaha qaybaheeda kala duwan waxaan kaloo sheegayaa ummadda Soomaaliyeed inay ogaan kala duwan ummadda ka qayb qaadashada nidaamka dawladeed waxa ahaado mid dawli ah mid dawladda federaalka iyo midka hoose iyo midka dhexe iyo midka maale iyo midka sidiba iyo midka ka sii hooseeya districtigaba intaba inay muhiim u tahay Soomaalidu inay ka qayb qaataan waxa kaloo muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed inay ogaato ay wadankooda dib u dhisaan halkana barnaamijyada ay aanu ka baranay waxa kamid ah inaan industrialization la sameeyo oo ummadda wadankii warshada la sameeyo dadka shaqo loo abuuro dadku si dhibaatada uga baxaan ay jiraan iyo qorigaan ay aamineen in ay asaga kaligiis ay ku noolaan karaan la ogaa la baro la tuso in nidaam kale oo lagu noolaan karo ay jiro dadka ka qaato ay nidaam ay abuurto iyo task force ka shaqeeyo ummaddu inay isdhex gasho lagana baxsho cudadaha ummadda kala dhex galay ee ku ragaadiyay nidaamkii dagaalkii sokeeyay saxibada dheer nasoo watay dibna aan loo fiirin wixii aan dib loo fiirin karin laga